ciidamada booliska magalada kismayona waxay maanta xirxireen qaar kamid ah wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee tagaasida kuwaasi oo ka shaqeynayay gudaha magalada Kismayo. waa bari aadan waa bari ayaa warkan inooga soo diray magalada Kismayo. waxaa maanta guud ahaanba la soo xirxiray tagaasidii ka shaqeyn jirtay magaalada Kismayo oo gaaraya ilaa 200 oo taksi isla markaana lagu eedeeyay in ay soo marin hanaanka ay maraan tagaasida ka shaqeysa magaalada Kismayo waxaana intooda badan lagu soo xareeyay saldhigga dhexe ee booliska degmada Kismayo. warsame Axmed Geele taliyaha booliska degmada Kismayo ayaa ka warbixiyay howlgalkan ay ku soo qabteen tagaasida waxaana hadaladiisii kamid ahaa hawlaha aan u ururnay takasidii ama aan uga howlgalay waxay ka mid tahay amniga guud ee magaalada. hore waxaan u sheegnay in amniga magaalada sugi doono wixii khalkhal gelinaya amniga magaalada inaan tilaabo ka qaadi doono. tiiyoon bay daba socotaa tagasida waxaan u beegsanay maanta in iyaga shaqada ugu soo koobnay waxay ka mid noqdeen waxyaabaha maalmahan dambe lidka ku noqday amniga magaalada iyo bulshada reer Kismayo amnigooda aan mas'uul ka nahay ilaalinayno. baabuurtaas waxaa hadda ka hor suuqa soo galay baabuur tagaasi ah oo shakhsi ama shakhsiyaal ay leeyihiin oo dawladda laga diiwaan galiyay wasaaradda gaadiidka iyo xafiisyada kale ay qusaysayba. baabuurtaas markii la arkay dad waxaa jira marka bareefadaan u shaqeysan jiray oo fara badan oo aan maanta wax calaamad marka aan lahayn laakiin taxi ahaan ku shaqeysan jiray. wixii markay arkeen gaadiidkii lacagtina la raqiisiyay la jabiyay lacagtii gaadiidkiina ay bulshada u adeegayaan nin walba wuxuu iskaga soo qortay sigar buu iskaga soo dhijistay wuxuu tagay madbacadaha warqad yar buu soo samaystay qof baa ku dhijistay. waxaa intaasi ka daran qof walba wuxuu baawur ka saartay bensal taarikadina uu iska furay meel buu iska dhigay. waxaa ka soo baxay meeshaas wax amniga lid ku ah bulshada maaragtay adeegeedii iyo shaqadeeda lid ku ah amniga guud ee magaalada iyo ciidanka amniga shaqadooda lid ku ah intaas marka meesha ka soo baxday. sidaas ayaan uga howlgalay tagaasidii magaalada ka shaqeynaysa dhammaan gacantaan ku haynaa shalay oo taariikhdu ahayd 24 bishii 10aad 2020 ilaa maanta oo taariikhdu ay 25 labada maalmood waa ka howlgaleen haddana waan ka sii howlgali doonaa. barnaamijkan waxaan iskala shaqeynaa wasaaradda gaadiidka iyo hay'adaha kala duwan ee amniga ee magaalada ka shaqeeya amnigeeda magaalada suga. bulshada reer Kismayo waxaan u sheegaynaa wax amnigeena lid ku ah anaga lid buu nagu yahay wax anaga lid ku ah bulshada reer Kismayo amnigeedu lid ku yahay maadaama aan dadkii amniga ka shaqeynayay una taagnaa inay bulshada reer Kismayo amnigeeda ilaaliyaan gaar ahaan gabi ahaanba dawladda gobolka jubaland amnigooda ilaaliyaan waxaan ka hortagnay barnaamij fal ka dhalan lahaa khatar amni ka dhalan lahayd haddana ayba muuqataba madax xoraadkeedan aan aragnay inay magaalada amnigeeda lid ku yihiin. sida ayaan uga howlgalay gacantaana ku haynaa dawladdu sida u qorshayso ayaana loo sii doonaa hadduu alla idmo. bensal buu gaari ku soo xidhay waa taxi baa ku qoran taarika ma laha meel alla meel loo raaca male. waxaan uga digaynaa bulshada reer Kismayo baawur walba taxi iskaga soo qortay meel loo raacaan line berri hadduu adiga laftaada fal kugu sameeyo aadan meel aad u raacdo iyo meel aadan u daba gashay aan lahayn inaan raacin oo inaan maaragtay aynan amnigooda aynan khatar gelinin. annaga waxaan ka shaqeynaynaa inay amnigoodu saaf noqdo. haddaba mid ka mid ah gudoomiyaasha tagaasida ka shaqeysa magaalada Kismayo oo Somali cable u warmayay ayaa sheegay in ay ka warsugayeen doonaan laamaha ammaanka ugu dambeyntiina codsi u diray. maanta waxa la isla dhaxmaraya oo magaalada oo dhan ay wada dareemaysaa in magaaladu maanta wada tagaasi la'aan tahay dadkii laamiyada la wada taagan yahay waxa la leeyahay tolo maxaa dhacay tagaasidii shaqeyn jirtay maxaa ku dhacay. waxa kale oo iyadan la isweydiinaya oo ayaamahan oo dhan socday oo la isla dhaxmarayay inuu khalkhal amni darro ay jirto oo waxoogaa cabashiye ay ka jirto xagga tagaasilayda la leeyahay waxyaabo badan oo ayay fududeynaysaa oo khalkhal amni darro ayaa jirta la sheegayay. taa ogeed waan la soconaa dawladdu inay maxaan ku raad talaabo qaaday oo sidii amniga lagu sugi lahaa laga wada shaqeynayo. annagu waan ku qanacsanahay tagaasilay haddaan nahay wixii amniga wax u dhimaya in maxaan ku raadaay laga wada qayb qaato aad baan ugu kalsoonahay waana ku taageersanahay. codsiga noo raaca waxay tahay maadaama oo tagaasilaydu qutul daruuriyaad lagu raarin jiray oo dad iska wada tabardarray ay iska lahaayeen oo maxaan ku raadaay yoomiyaadka maalintii dadku ay wax ku soo raadsan jireen in dawladdu sida ugu dhaqsaha badan ay uga soo jawaabto insha Allah saan ka rajaynayno waana ku taageersanahay insha Allah waana ka qayb qaadanayna insha Allah wixii amni darrada maxaan ku raadaay keenayo oo dhan in maxaan ku raadaay laga wada midoobo wabillahi tawfiiq. waa bari aadan waa bari wararka Somali cable TV magaalada Kismayo.